السلام عليكم كسو دو برو برودكشن magacayga waa Cabdiwali Maxamed halkan waa meesha aad ka barataan barashada kombiyuutarka iyo sidoo kale multimedia Pro Production challenge everything haddaba maanta muuqaalkeena waxaan ku qaadan doonaa sidee dhagaha bluetooth-ka aad ugu xiri kartaa kombiyuutarkaaga adigoo isticmaalayo laba wado wadada koowaad oo ah in si caadi ah u soo qabadsiiso wadada labaad oo ah dhagaha originalka waxa ay wataan applicationkaas sidee ayaad ugu soo qabadsiin kartaa si applicationka aad u isticmaashid performance-giisa ama features-kiisa haddii aad tahay qof xiiseynaya casharadan maxaa inoo diiday inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad inoo like gareyso muuqaalka waxaanu kaa codsanaynaa inaad commentiga inoogu soo qorto su'aal walbo aad u baahan tahay ama baahidaada uu yahay si aan kaaga soo diyaarino cashir haddaba markii aan joogno dhinaca kombiyuutarka waxaan sameynaynaa qaybta start menu-ga ayaad kale ku siinaysaa kadibna waxaa qoraysaa bluetooth waxaan rabnaa inaan galno qaybta bluetooth-ka ayaad kale ku siinaysaa waxa inoo soo kacayo dialogbox-ka bluetooth-ka ama functions-ka bluetooth-ka laga controlo haddaba maxaan sameynaynaa dhagaha ugu horeeya gacanta ku hayno waa dhagaha Buds Pro haddaba Buds Pro-ga sidee ayaan ugu xiri karnaa laba qaab waad ugu xiri kartaa qaabka koowaad oo ah dhagaha Buds Pro-ga ayaad furaysaa dhagaha Buds Pro-ga ayaan furay waa arkaysaa nal yar oo cagaaran ka daaran okay meeshaan ay ku qoran tahay add device ayaa kaliya ku siinaysaa kadibna qaybtan kore waxa ka arkaysaa bluetooth kaliya ayaad ku siinaysaa automatically waxa arkaysaa dhammaan bluetooth-yada furan ama infrared ahaado ama wixii agaarkaaga ka furan oo dhan ayaa waxa ka arkaysaa qaybtan listiga qaybta ugu hooseeya waxa ka arkaysaa magaca dhagaha aad wadatid aduu original yahay aduu heblow yahay ama magaca ku qoran waxa dhan halkan ka arkaysaa aniga dhagaha aan rabnay inaan isticmaalno waa Galaxy Buds Pro kaliya ayaad ku siinaysaa automatically waxa arkaysaa inuu soo qaayo kombiyuutarkeena asigoo ku sheegayo waliba inuu ku xiran yahay kombiyuutarka sidoo kale voice ahaan aad ugu sheekaysan karto hadii lagu soo waco ama aad adiga qof wacdo aad voice ahaan u control karto sidoo kalena wixii kombiyuutarka ka daarana aad si caadi ah aad u dhageysan karto haddaba kan waxaan iska leenahay done oo waan ka dhameysanay qaybta koowaad hadii marka aan xiro bluetooth-ka aan close dhaho automatically waxa arkaysaa inuu ka baxayo bluetooth-ka device-ka ee haystay kombiyuutarka balse hadii aan furo waxa arkaysaa hadda wax cagaar ama nal cagaara halkan iyo ma saarna balse markii aan open dhaho waxa arkaysaa inuu isoo koraayo nal yar oo cagaaran kaasoo ku sheegayo inuu active yahay qaybtaas waxa ku dhan qaybta Buds Pro-ga sidoo kale qaybta Buds Plus-ka haddii aad rabtid asna inaad ku xiriirisid kaliya open ayaa leedahay sidoo kale waa arkaysaa nal cagaaran ayaa ka shidan originalka waxa lagu gartaa automatically markaad laba joor aad ku xiriiriso waxa arkaysaa nal gaduud ama nal cagaar labadaba inuu soo shidaayo okay add ayaan leeyahay bluetooth-ka ayaan furayaa automatically waxaan sugayaa listiyada bluetooth-yada agteeda ka dhow oo dhan inuu ii soo qabto waxa halkan ka arkaysaa Galaxy Buds Plus kaliya ayaad ku siinaysaa automatically sida aad u soo qabsiisay ayaa u soo qabsiin kartaa Plus-ka waa arkaysaa marka Buds Plus-ku inoo soo qabsaday connected way voice iyo ku hadal labadaba waad ku samaysan kartaa sidoo kale waadna ku dhageysan kartaa wixii markaas aad rabtid kombiyuutarka kaaga daaran waa arkaysaa kii horena wuu inoo haystay laakiin kuma xirna kana wuu inoo haystaa balse waa uu ku xiran yahay haddaba maxaa samayn karnaa labadaba anagoo open uu inoo yahay ayaa awood u leenahay inaan at the same time aan ku xiriirino kombiyuutarka waa arkaysaa labadaba way inoo furan tahay sidoo kalena kombiyuutarka way ku xiriirsan tahay haddaba qaybtaas waxaan ku baranay qaybta koowaad oo ah sidee ayaad dhagaha bluetooth-ka aad ugu xiri kartaa kombiyuutarkaaga without application haddaba qaybta labaad waxaan ku qaadan doonaa sidee software-yada loogu talagalay dhagaha originalka ee Samsung-gaha ah sidee ayaad application-kiisa aad ugu isticmaali kartaa kombiyuutarka dhagaha Samsung-ga originalka waxa ay wataan application lagu magacaabo wearable app ama Galaxy Buds marka kombiyuutarka la yimaado waxa u yaqaanaa Galaxy Buds haddaba sidee ayaan u heli karnaa laba qaab waad u heli kartaa qaabka koowaad waxay tahay inaad tagtid qaybta Google kadibna aad ula soo degtid as application ama exe file la dhaho balse wadada ka fudud aan rabaa inaan ku sheego waa taqaanaa umaleynaa Microsoft Store-ka ayaad kaliya ku siinaysaa waxa ku soo baxayo download box-ka qaybta kore ee searching-ka ayaa kaliya waxa ku qoraysaa Galaxy Buds
Galaxy Buds markaa ku qortid waa arkaysaa automatically waxa ku soo baxayo Galaxy Buds kaliya ayaan ku siinaynaa waxa arkaynaa applicationkii inuu inoo soo kacay qofkii applicationkan isticmaalay wuu fahmi karaa automatically inuu yahay applicationkan midka saxda ah qaybtan openka ah wuxuu kaaga soo qorayaa hadda anaga waa inoogu shuban yahay balse adigu wuxuu kaaga soo qabanayaa get iska dhaaf get kaliya ku dheh automatically wuu ku soo dagayaa hadii uu ku soo degsan yahayna kaliya waxa leedahay open anaga hadda waxa leenahay open markii aan dhahno labada dhagaba way inoo furan yihiin waa arkaysaa inuu inoo soo qabtay dhagaha Galaxy Buds Pro hadii aan dhaho marka waa arkaysaa qaybtan waa left iyo right ka 100% case-ka waxa la yiraahdaa qolofka hadii aan isku xira fiiri wuu ku deynaya wuu ka baxaya because of asiga power bank waaye qaybtan hoose power bank ayuu ka yahay sidoo kale mobilkaad ku kaarikeysan kartaa as wireless ahaan mobilka ayaa soo qabanaysaa sida tan ayaad u saaraysaa wireless ahaan ayuu u kaarikeenaya insha Allah casharadeena soo socda ayaan ku qaadan doonaa haddaba qaybtan waxaan ku baranay sida ugu fudud ee dhagaha Buds Pro-ga aad ugu xiriiri karto computerka ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay fadlan waxaanu ka codsanaynaa in ay noo subscribe gareyso channelka sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalkan iyo muuqaalada kale hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba ee aan markaas soo gelino anigu waxaan ahay qofkii ku baray adiguna waxaan noqotay qofkii ka faa'iiday waa anigoo ah Cabdiwali Maxamed waxa idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh